Allah u naxariistay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ayaa maanta aas qaran lagu sameeyay magaalada Muqdisho waxaana ka qayb galay madaxda sare ee dawladda iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamul goboleedyada qaar oo si wadajir ah uga qayb galay salaadii janaasada ee injineer Yarisow. Dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya ayaa iclaamiyay kulan weyn oo barordiiq lagu sameyn doono duqii hore ee Muqdisho. Faadma Cabdiqaadir Xasan ayaa faafahinaysa. waxa garoonka aadan Cabdulle Cismaan aadan Cabdi ka soo dagatay diyaaradii sidee meedka Allah u naxariistay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahaana duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yarisow iyadoo meedka marxuumka ay la socdeen eheladiisa caruurtiisa iyo sidoo kale xubno mas'uuliyiin oo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana waxa aas qaran loogu sameeyay magaalada caasimadda ee Muqdisho. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa garoonka aadan Cabdulle markaas ugu qayb galay salaada janaasada una tacsiyadeeyay ehelada marxuumka iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyadoona intaas kadib meedka la soo qaaday laguna aasay dugsiga tababarka General Kahiye. waxaa goobta aaska goobjoog ahaa ehelada marxuumka caruurtiisa ra'iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Khayre, ra'iisul wasaar ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar, gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi, madaxweynaha waqtigiisa Laade ee Galmudug, madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Laftagareen, labada qale xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya, qaar kamid ah xubnaha golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale mas'uuliyiinta gobolka Banaadir ugu horeeya gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda iyo taliyaasha ciidamada qalabka sida. aaska kadib waxaa warbaahinta la hadlay mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar, ra'iisul wasaar ku-xigeenka dalka ahaana gudoomiyaha guddiga aaska qaran oo magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. waxa ugu horeyn ehelada marxuumka ugu tacsiyadeeyay geeridii ku timid Allah u naxariistay gudoomiyihii hore gobolka Banaadir injineer Yarisow inuu samir iimaan ka siiyo rabbi jannadiisa firdawsana ka waraabiyo. waxa uu ra'iisul wasaar ku-xigeenku sheegay in marxuumka uu ahaa shakhsi howlkar ah aadna u afgaabnaa isla markaana shaqada qaran mid uu ahaa mid lafdhabar ah. sidoo kale waxa uu tilmaamay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu ku dhawaaqay 3 bari kadib la qaban doono kulan isla barordiiqa kulankaas oo hadal ka jeedin doonaan madaxda sare dalka iyo ehelada marxuumka. Allah u naxariisto ilaahay su'aasha ha u fududeeyo. Cabdiraxmaan waxa uu ahaa shakhsi aad u wanaagsan oo afgaaban oo af iyo adinba dadka muslimiinta ay ka nabad galeen, shakhsi karaamo leh uu ahaa, qof saaxiibtinimo wanaagsan buu ahaa, qof aan cidnaba dhibaato u geysanin buu ahaa. aniga intii xukuumadda la dhisay khaasatan xiriir dhow ayaanu lahayn oo walaaltinimo saaxiibtinimo oo wada shaqeyneed hadduu golaha wasiirada ka tirsanaa iyo hadduu xukuumadda gobolka Banaadir iyo duqa magaalada Muqdisho ahaaba qof aad iyo aad sharaf u leh oo edeb leh oo akhlaaq leh oo sifooyinkii qofka muslimka lagu sheegi jiray dhammaantiin leh buu ahaa. waxaan Ilaahay u baryaynaa inuu u naxariisto su'aasha u fududeeyo jannatul firdawsina geeyo. Cabdiraxmaan wuxuu soo halgamay dalkiisa, wuxuu waqti badan iyo tacab badan geliyay in dawladnimo iyo nabad iyo deganaansho dalkiisa ka islaaxaan, magaaladiisa ka islaaxaan. xamar uu guntaday, naftiisu u huray, aakhirkiina waa uu kaga dhabeeyay wixii ummadda Soomaaliyeed iyo dadkiisaba uu la qaban lahaa ama uu u qaban lahaa intuu nool yahay inuu qabto. taa marxaatibeen ka wada ahayn waa uga marakacaynaa. waxa jiri doonta oo kale oo madaxweyne Farmaajo ku baaqay in 3 cisho kadib barordiiq qaran loo sameeyo kelmadaha ku munaasibka ah madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha, asxaabta, ehelka, qaraabada laga oran doono xafladaas haddii Ilaahay yiraahdo. waxaan leeyahay Ilaahay walaalkiin ha u naxariisto. waxay nooga aadan oo kaliya in aynu u ducayno. waxa kale oo doonaya inaan munaasabadan uga faa'iideysto inaynu toddobaadkan ka soo gudubnay ayaa waxa uu marxuumka ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Dooxa ee dalka Qatar. waxa kaasoo u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray qarax bishii July ka soo gudubnay 24keedii ka dhacay xarunta aqalka dawladda hoose Xamar iyadoo maanta aas qaran loogu sameeyay magaalada caasimadda ee Muqdisho. wasiir hore ayaa qarax khasaare geystay lagula beegsaday magaalada Boosaaso ee gobolka Bari sidoo warkaani ku qaadaa dhigayo wariyahayaga Cabdullaahi Cismaan Cadaani. faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax hoogan oo barqanimadii maanta ka dhacay bartamaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. qaraxa oo miina ah ayaa waxaa lala eegtay gaari hilibkiisa uu la socday wasiirkii hore ee wasaaradda qorsheynta maamulka Puntland Sharax Xaaji Faarax sida ay xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ah. wararka qaar ayaa sheegaya in xilliga uu dhacay qaraxa uu gaariga saarnaa wasiirka balse uu ka badbaaday. ugu yaraan 1 askari ayaa ku dhaawacmay qaraxaas kaas oo ka mid ah ilaalada wasiir Sharax Xaaji Faarax oo ka tirsanaa xukuumaddii hore Cabduwali Maxamed Cali Gaas.
wararka ayaa sidoo kale intaasi ku daray in qaraxa kadib ee goobta ay gaareen ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka islamarkaana baaritaano kooban ay ka sameeyeen halkaasi ma jirtay ilaa iyo hadda wax faahfaahin ah oo ay saraakiisha laamaha amnigu ay ka bixiyeen qaraxaasi maalmihii dambe waxaa gudaha magaalada boosaaso ka dhacayay falal lidii ku ah nabadgelyada sida qaraxyo iyo dilal qorshaysan intaba dhinaca kale war ay baahiyeen daacish ayaa waxa ay ku sheegteen mas-uuliyadda qarax maanta ka dhacay magaalada boosaaso ee gobolka bari oo lala egtay wasiirkii hore ee qorsheynta Puntland daacish ayaa xustay in qaraxaasi ay ku dhaawaceen 2 ka mid ah ilaalada wasiirka inta badan falalka qaraxyada iyo dilalka ka dhaca magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland ayaa waxaa mas-uuliyadooda sheegta al-shabaab iyo daacish kooxo hubeysan ayaa dil ka geystay qaybo ka mid ah suuq bacaad ee degmada Yaaqshiid Guleed Cumar Xasan ayaa faahfaahinaya dilkan ayaa abbaarihii 12 duhurnimo oo qadar daqiiqo la waxa uu ka dhacay gudaha suuq bacaad degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir waxaana la sheegayaa inay ka dambeeyeen koox ku hubeysan bastoolado kuwaas oo dilka u geystay askari ka tirsan ciidanka militariga sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah dadka ka agdhawaa goobta uu dilku ka dhacay ragga bastoolada ku hubeysan ayaana la sheegay in markii ay dileen askarigaas ee hore u qaateen qorigii uu wato oo ahaa nooca AK47ka sida uu sheegayo mid ka mid ah dadka ka agdhawaa goobtaasi iyo wuxuu ka dhacay meesha la yiraahdo suuqbaxaad uu ka dhacay ma garatay waxa dhacay waa nin askari oo military lagu dilay ma garatay qolada bastoolada mid dishay mataan waa 6 saac daqiiqada dhimanaya ma garatay gudaha suuq waa laani dhexbartamaha waaye oo u dhow laanta qaybta laanta u dhow mataan qorigu watay boosashu qorigina waa la qaatay anagu hubeysan ahaataa dil kadib waxay maan ciidamada laanta laga wareegtay kabacdii waa ilaa hadda wadada waa xiranta waa taagana weli wadadan taagana ma garan indhad la qabtay ma jiro walaal wax lama qaba weli askarta baarisay wadaan oo suuqa ku dhex jiraan haddaba dilkaasi kadib ayaa ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya waxa ay gaareen aagga uu dilku ka dhacay iyagoona la sheegay in halkaas ay ka sameeyeen baaritaano la xiriira dilkaas loo geystay mid ka mid ah askarta ciidamada xoogga dalka ee maanta ka dhacay qayb ka mid ah suuqa labaad ee ugu weyn Muqdisho ee suuq bacaad ee ku yaala degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir shirweyne u dhaxeeya qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada ayaa maanta ka furmay Jigjiga sidoo warkaani ku faahfaahinayo wariyahayga Maxamed Cabdiqani Salaad waxaa ka furmay hoolka weyn ee madaxtooyada dowlad deegaanka Soomaalida shir u dhaxeeyay madaxda kala hogaaminaya qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada shirkan ayaa inta badan diiradda lagu saaray xalinta dhibaatooyinka ka dhex jiray labada qowmiyadood ee Oromada iyo Soomaalida kuwaas oo warmaha isu looshanaya muddo dheer madaxweynaha dowlad deegaanka mudane Mustafa Maxamed Cumar Cagjar ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinayaa ahamiyadda uu xambaarsanaa shirkan ay iskugu yimaadeen madaxda Oromada iyo sidoo kale Soomaalida booqashadan waxay ahayd booqasho lagu talagalay inay dhacdo markii aan tagnay Adama ee soo laabanay inay yimaadaan deegaankeena runtii iyadoo shirkii Adama lagu tagay tihiin in wax badan ka bedelay dareenkii jiray oo dadkii Soomaaliyeed iyo dadkii Oromada isku soo dhaweeyay booqashadan waxaan rajaynaynaa inay sii xoojin doonto isdhexgalka iyo walaalnimada dadka Oromada iyo dadka Soomaalida iyadoo hadda saad la socotaan nabadgelyo buuxda deegaanku ka dhashay laba meel xuduudaha wixii jiray la xaliyay badankooda laakiin inaan uga faa'iideysano arrintan aan sii dhexgelino dhaqaale ahaan siyaasad ahaan iskaashi ballaaran labada deegaan ay yeeshaan shirkan ayaa daba socda shir bishii hore lagu qabtay caasimadda qoomiyadda Oromada oo gundhig u ahaa wada hadallada xalka loogu raadinayo labada qowmiyadood ee Oromada iyo Soomaalida xiisad dagaal ayaa ka taagan deegaano hoostaga gobolka Togdheer sidoo warkaani mar kale ku qaadaadhigayo wariyahayga Guleed Cumar Xasan sidaan ku heleyna wararka ka imaanaya qayb ka mid ah gobolka Togdheer ayaa ku waramaya in xiisad xoogan oo u dhaxaysa jabhad cusub ee ciidamo ka tirsan maamulka Somaliland ay ka taagan tahay qayb ka mid ah gobolkaas gaar ahaan agagaaraha deegaan lagu magacaabo Ali Saahil waxaa la sheegayaa saacadii hore aanu ka soo gudubnay inuu jiray isku horimaad dhexmaray ciidamo uu watay gudoomiyaha gobolka Togdheer iyo taliyaha ciidamada gobolkaas ee maamulka Somaliland iyo jabhadaasi hubeysan waxaana sidoo kale la sheegayaa in jiraan qasaarooyin ka dhashay weerarkaasi ama dagaalka kooban ee dhexmaray dhinacyadaas inkastoo ilaa iminka aan la xaqiijin in jiraan qasaaro nafeed oo ka dhashay dagaalkaasi koobnaa
barasaabka xogeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Ibraahim Nafaqo ayaa warbaahinta u sharaxay israsaasintii koobneed iyo waliba khasaaraha ka dhashay taas faa'iido dhalinyaro oo dad magarata ay keenay ay ku lideen gudoomiyaha iyo taliyaha qaybta iyadana wax weyn runtii oo iminka la sheegi kara ma gaarin waxa uu dhimayso dowladnimada ee sharciga dowladda ayaa wax kasta ka sareeya cid walba burcabadeeda meel gasha ama maxay tahay burcadulaha haato ama diciis abaabushay wax magarata ha noqotay gacan midna ayaa laga qabanay biidina kaliya qalabkuna wuu dhacaa ilaahay wax qaldamin binaadkuna waa qaldamaya dowladda lagu qaldamaya shacabka lagu qaldamaya marka in cid walba dowrkeeda ay qaadato ayaa jabhadan cusub oo ilaa imika aan la shaacin magaca jabhadaas iyo waliba cid hogaaminaysa ee ka soo ifbaxday qayb ka mid ah gobolka Togdheer ayaa imaanaysa xilli ee Soomaaliland la tacaalaysay hal u helida jabhad uu hogaaminayay Cornel Caare kuwaas oo ciidamo ka tirsan Soomaaliland kula dagaalamay qayb ka mid ah gobolada Sool iyo Sanaag inkastoo wararkii ugu dambeeyay ay tilmaamayeen inay jiraan wada hadallo Soomaaliland iyo jabhadda Cornel Caare u dhaxeeya oo soconaya hase yeeshee tani ayaana Soomaaliland caqabad hor leh oo ku noqon doonto maadaama ay sii tarayaan dadka ka hor imaanaya maamulka iyo jabhadaha dagaalada kula galaya qayb ka mid ah goobaha ay ka arrimiso Soomaaliland halkaad warkaasi habeenimo kala socotaan dhageystayaal waa shabakada warbaahinta Shabeelle Iiraan ayaa markab kale ku afduubatay biyaha gacanka Cumaan Iiraan ayaa markab kale oo ajnabi ah ka qabsatay gacanka Cumaan sida ay sheegtay warbaahinta dawladda Iiraan wakaalada wararka ee Reuters oo soo xigatay warbaahinta qaranka ayaa sheegtay in ciidamada ilaalada gacanka ay qafaasheen markab shidaal oo marayay gacanka Cumaan kaasi oo ay sheegeen in shidaal sharci darro ah uu siday qaar ka mid ah dalalka Carabta waxay sheegtay in markabku uu siday shidaal cadaadiskiisu gaarayo ilaa iyo 70,000 oo litir waxayna intaasi ku dartay in 7 qof oo shaqaale ahaa markabkana la xiray dhacdadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo cirka ay isku sii shareerayso xasarada gacanka kadib markii ay Mareykanka uu sii adkeeyay cunaqabateynta uu ku soo rogay shidaalka Iiraan cunaqabateyntan ayaa Iiraan dib loogu soo celiyay kadib markii Mareykanka uu ka baxay heshiiskii nukliyeerka Iiraan sanadkii 2015 waa markii labaad oo ay Iiraan qafaalato markab shisheeye oo 13 bishii July waxay ciidamadeeda ilaalada gacanka ay xeebaha Iiraan ku qabteen markab ay sheegeen inuu siday shidaal sharci darro ah ugu dambeyntiina maxaabiis ayaa ka baxsatay xabsi ku yaala dalka Ciraaq taliyaal sarsare oo ka tirsan booliska ciidamada Baghdad ayaa shaqada laga eriyay kadib markii 15 qof oo u xirnaa ganacsi daroogo ay xabsiga ka baxsadeen maxaabiista ayaa ka baxsaday xabsi ku yaala bariga caasimadda Baghdad waxaana wararku ay sheegayaan inay u awood sheegteen ilaaladii xabsiga ka hor inta aanay jabsan dawladda Ciraaq ayaa si adag uga jawaabtay falkaasi taliyaha booliska ee caasimadda ayaa xilka laga qaaday waxaana sidoo kale shaqadii laga eriyay saraakiisha uu xil saarneed ammaanka